munaasabadan qiimaha iyo qaayaha badan marti sharafka ugu horeeya barasaabku iyo mas'uuliyiinta kale laamaha dawladda ka socdaba mid walba magaciisa iyo masabkiisa ayaan ku salaamayaa. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mar labaad ama bacd intaa dabadeed kolay goor gaaban hadalkeed gaaban dadku inta badan hadalka laba loo qaybiyaa waa nasri iyo nadmi baa la yiraahdaa. nadmiga dadku kama xiisa gooyaan gabayga oo kale laakiin hadalka tiraabta waa lagu daalaa. afar eray baan ku goobayaa waqtigana waan ilaalinayaa insha Allah. waa dardaaran aan ugu dardaarmay ardaydaas yartaa quraankii maanta dhamaysay iyo duco iyo hambalyo aan ugu hambaleynayo maamulkii dugsiga iyo waalidiintii iyo macallimiintii iyo mahadnaq aan ugu mahadnaqayo mid walba oo tara u soo galay mid walba oo waqtigiisii u soo lumiyay. haddii aan ku horeeyo dardaaranka kole in badan waa la dardaarmay ardayda quraanka kariimka ahi wax la akhriyo waa kii ugu khayrka badnaa wax la bartana waa kii ugu qiimaha badnaa waana shafiicu liaalihi. eedaab buu leeyahay eedaabtiisa waxaa ka mid ah 8 haddaan ereero u dul istaago anigoo hadalka ururinaya. awalan ikhlaasu niyya niyadiin looga saaro wax kastoo hawa ah. tahsiinul hay'a adigoo iska jiifa akhri maysid laakiin qaab fiican baad u fadhiyaysaa. qodobka saddexaad waxa weeye inaad maxay samaysid الخشوع inaad khushuucdid. tahsiinu sawt cod fiican inaad ku akhridid meeshaad ku akhriyaysaa inay ahaato meel munaasib quraanka u ah. dahaara tadayib tandiif fam istiwaak in marka la akhriyo la cadaydo maxaa loo cadaynayaa malaa'ig baa ku soo dhawaanaysa iyagoo jeclaysanaya codkan aad akhriyaysid. qodobka toddobaad istimaacu qiraa'ah meel babliga sida hadda goobtan ay fadhino kale ama masaajidada ama malcamadaha waa makaan ama munaasabad ka duwan goobaha ilaahay. nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam mastamaca qawmun fi baytin min buyuti illah yatluna kitab allah wa yatadarasuna baynahum illa nasalat alayhim almalaa'ika wa hafathum rahma wa ghashiyatuhum maghfirah وغشيتهم رحمة الله وحفظهم الملائكة. وحوي ودعو قال حتى قف كان سوق دجاجنا لكن قبت سكيمي دعاء يسكر راعي حلو فلان بمشي فديه سوق محمد برني مركز سامي من دام يجي سوقي وحاجة لها بسببه موجود عفا مركز القرآن كوح سهلا معها. خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويدعو بها آخرين بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كتاب كان قفك برتي قفك أنبراني ما سنا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كل خطبة قال ما يو هذا الديرين ما يو وين كل دركسنا أي وراح كي قيمه سا قايه سا إنه قلنا قفل أنتو كقاطو أيو كرامة يلانيا أديكو أميها هذا القرآن كلاهي برتي قيمات بالشدة كوي يلانيس إلهي باورنا فلان وان شعراضي إذا كنا شعراضا maxaa lagu jeclaanaya waa quraanka baratay. taas waa dardaaranka dadka quraanka bartay lana doonayaan dhamaanteen kullu man habba wa dabba mid kasto yar iyo mid kasto weyn inaan quraanka ka caajisnaan barano. mid kalena waxa weeye gobolka degmada Balugweedle kulay malcamadu way badan yihiin rag baana wada haysta hablaha 12 ka ee quraanka bartay iyagana waxaan soo jeedin lahaa inay madaaris furtaan. hawlkii habluhu way ka maqayeen quraanka dhigi jiray inay iyaguna maxad furtaan iyo madrasad. inaan ba halkan hadda rigu lahaa wasaaradda waxbarashada waxaan weydiinayaa wuxuu ahaa xasan saartuma way maxadadu way badan yihiin laakiin waxa la yiraahdaa fi kulli mahal lahu maqal oo kasta wax laga yiraahday leedahay maanta madrasadda Umar bin Khadaab bay madaxa ku sidana kuwa kala jeebada yar gashaan qolo walba salaad walba xiligeeda la tukadaa salaad walba xiligeeda la tukadaayo cid kale ku amaanayna maanta waxaanu amaanaynaa hormuudka madrasadda Umar bin Khadaab oo si fiican
isku soo abaabulay nidaamka wanaagsani quluubta dadka ayaa lagu hantaa adigoo shaarku kala dheeriya dadka u timaadeen iyo adigoo qaabaysan iyo maal lagu jeclaanaya waxa la ilaa qalb furan lama galay qalbi furan baa la galaa nimcaan quluubtii waalidiinta ugu hantay waxa weeye waayeel hortooda caana loogu biyeeyaa kullu inaa yadxu bima fii weel walba wixii lagu shabaa laga garooriyaa wuxuu dadkan baray iyo tusaale nool oo xayya ayuuna siiyey halkan bay carabi ka akhriyeen soomaali ka akhriyeen quraan cod macaan ku akhriyeen hadalkan idinku badiyey waan idinku dheereeyey raalahaada salaam